kalsooni wanaagba kalgacayla uuro kor u qaada nolosha وهبين تاريخية أو فرحات بدن أي كل هان تهاي خويس كان أضيء وياهي عبد الرحمن إيو حاسكي سايا طبعا وحي أبي لعبنا يسا نور فرحات له أو عصب كان الدوام من بدن قاركود أي آمين سنايين من خويس كان أوجيه كلام وباللوجا نور فرحات أي كبده محمد عبد الرحمن مختار إيه رقية عبد الله محمد ayaa intii aanay midoobin naawilayay inay ku noolaadaan marka ay isku yimaadaan nolol qurux badan oo ka fog nooc kasta oo dhib ah waxayna doonayeen in arooskooda uu u dhaco sida hablaha iyo wiilasha kale ee isguursanaya hadda waxaan u soconaa dabcan guriga cusub oo ay degi doonaan maxamed cabdiraxmaan iyo xaaskiisa halkaasi oo ay uga bilaabanayso nolosha inteeda kale halkaan u soconno idinka la tacjabay waxaan nimid halkan oo ah hooygooda cusub محمد يروقيو طبعا هذا waxa u bilaabanaysa noo hormar leh waxaana hadda ay u socdaan qolkooda oo ay ka degan yihiin hotelka waa hotel cusub oo hadda dhul gacanta laga qaaday ismiisa habeenkii waxa lagu socdaa 100 ilaa 150 qof la xiso lacag aad u badan marka magaalada soo fiiri waxa mas'uuliyadda saddexda u xirtay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay halkan ku noolaanayaan tan inta aroos qaran looga dhigay labadan caruus daadaya 450 ay ka degan yihiin hotelka واو كورما غري وقال aad u qurux badan sama dabcan sariirtii lamaanaha fadhi kale dhaladaas ayay sidoo kale dabcan daawan karaan ay u gaar yahay waa qayb ay u xiran sida arki karto xagga waa fadhigooda martida iyo ayaga wixii soo booqda ayay dabcan halkan ay kula shaaheynayaan sidoo kale markii dhalada la fiirsanayeen halkan ay waqti ku qaadan doonaan xaggana waa meesha gaar ku ah lamaanahan oo loogu magac daray kuwii qarniga waa maxamed cabdiraxmaan iyo ruqiye midka kale wuxuu u balan qaaday inuu naftiisa u hurayo inta ay nool yihiinna ay wada ceeshayaan dadka Soomaaliyeed waa maasiin dawladna way maasan tahay aasheeda waxaan ku balan qaadayaa inay cimriga la kariman inaan nolol fiican ku noolaan dadka Soomaaliyeed aad u wanaagsan dawladda insha Allah ninkan dadaalka lagu garab istaagayo waxa kaalin wanaagsan ka qaatay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaana dawladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay aroos qaran u dhigayso lamaanahan Munasar Maxamed Cabdi Dalsan TV Muqdisho